anigu waxaan ahaa ama intan dadku ay social media uga arkeen hadii taariikh nololeedkayga ay dib u raacaan way yaab lahaayeen in xaaska ka dhintay oo laba hablood oo rajaya shabikadii lix jir ku soo korinayay baan xafaayada ka bedelayo timaha u soo dabaay cuntada u karinayay oo Yurub ku haystaan markana TV-da iyo daawan jirtay qofna imu dareemayno labada hablood ba 18 jir iyo 17 jir soo gaarsiiyay ilaahayna uu igu asturay alxamdulillah rabbil caalamiin marka laba hablood korinayso eriga lagu yiraahdo gurigaaba waa habaar waa gabadhu ka dhimantay way guriga muxuu ku baayaa deegaanada kala ku guursanaysa xitaa walaaltinimadii caruurta dhimanayso caruurtina wala kala qaab qaadanaya marka guriga waa baabaayay xaalad marka waxaan ugu talagalay bal inaanay caruurtani guriga kale iyo uqdad ugu korin anaan intu kala iska laacan gurigana baabiinayna labadii hablood koriyo oo hooyadiin halaaha uu xalsan xajna ka waraabiya ay ka maqlaato marka ni Soomaaliyeed way adag tahay boqolkiiba 99 way adag tahay inuu laba hablood Yurub iyagoo shintii lixtir laga dhintay inta ay noolaayeen hooyadu waxay kaga dhacay naaskana wixii xuma kaga dhacay dabadeedna guriga ku hayay noloshayda aynkaasa qofka inta albaabka markaad ka baxayso inta ku timaado kooransa adigu deeymka hadii markaynu kala tagayno wada isma salaamayna war wayno marka leen soodeena deeyay nolosha warka ma hayneen marka war qof markaad guriga ka baxayso aad for sure isna badgaleynaysan hadaan kuugu iman waayo day saamaxaysiin for 5 years baan ku jiray waxaan ku jiray inaan labada hablood koriyo oo aan rajanimo wadiga arkay markii Yurub dumar iyo rag isqabo caruurta haysta caruurta laga qaadaya min laba hablood haya ka waran social-ka ku dabagalo dawladda halkan caynkan markii waxba ii waayay markii daba iyaga ay caawin jirtay maxamed 2011 kii way dhimatay waa markii aan laba sanadood ku jiray miidiyaha dadku sida ay ma ilaa imika hablaha baan koriya miidiyahana waa la igu arkaa laakiin dadku isma weydiin kan noloshayda rasmiga ah uligeena kama warramin ma jecel inta ay mooyaan inaan ka warramo waa iska de alxamdulillah rabbil caalamiin ilaaha awood laan in xariisto waa adiga yaa kayda